الحمد لله رب العالمين. أمر باتباع الكتاب والسنة ونهانا عن الابتداع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين صاروا على نهجه وتمسكوا بسنته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بكتابه وسنته، وتمسكوا بكتاب الله وسنته، ففيهما الكفاية والهدى والنور. وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلال وغرور. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الكتاب ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عباد الله، walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle. awalan allah subxaanahu wa tacaala na soo waafajiyey inaynu soo galno markaa beydkiisa biidni illaahi tacaala. mowduuceena maanta waxa uu yahay fii wujuubi itibaaci alkitaabi wa sunnati الnabiyi sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal, waxaa waajiba dhammaanteenba waxaa waajib inagu ah itibaacu alkitaabi wa sunnada iyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu raacno. labadaasuu ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala, waa itibaacu alkitaab wa sunnati الnabiyi sala allahu calayhi wasalam. ilaahay kitaabkiisa aynu raacno, sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu raacno. arrintaa iyadii waa arrin waajiba oo qof kastoo muslima oo islaamnimo sheeganaya ay waajib ku tahay kitaabka inuu raacayo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baa mahadle. allah subxaanahu wa tacaala ina amray biitibaaci alkitaabi wa sunna. waxaa mahadle allaha ina faray ee ina amray kitaabka iyo sunnada inaynu raacno. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga reebay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inoo diiday kitaabka iyo sunnada wixii ka soo harhsan ee markaa khilaafsan raacitaankooda ilaahay waa inaga reebay subxaanahu wa tacaala. aad iyo aad buu inooga reebay. wax alla wixii kitaabka khilaafsan
sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam khilaafsan ilaahay waa inooga digay taasina waa naxariis alla tabaaraka wa tacaala uu noo naxariisanayo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxdaaniyadiisa cid la wadaagtaa ma jirto cibaadadana cid la wadaagtaa ma jirto man yutic allaha wa rasuulah axadka ilaahay iyo rasuulkiisa ateeca faqad faaz wuu libaana walaalayaal libaantu halkay ku jirtaa waa kitaabka iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad ka fogaato bidcooyinka iyo khuraafaadka la wado inaad ka fogaato ood markaa qabsato kitaabka iyo sunnada inaad qabsataa lagaa rabaa waman yacsi allaha warasuulah faqad qawaa axadka ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya oo raaci waaya kitaabka iyo sunnada raaci waaya waxa uu la yimid markaa qawi xadgudub iyo dulmi ayuu la yimid walaa yaduru ilaa nafsa nafsadiisa mooyaane cid kala dhibi maayo ka maanta kitaabka ka cararaya ee waxaan kitaabka iyo sunnada ku sugnayn ummadda cibaado uga dhigaya ee ummadda ugu baaqaya nafsadiisa mooyaane axad kale ma dhibaayo nafsadiisa ayuu dhibayaa walaa yaduru allaha shay-a ilaahayna haba yaraatee wax alla wax dhiba uu soo gaadhsiinayaa ma jirto bale nafsadiisa ayuu ku gardarooday mid kastoo kitaabka iyo sunnada garab mara oo kitaabku wuxuu farayo qaadan waaya sunnadu waxay faraysa la iman waaya ee wax kala raadiya waa qof markaa nafsadiisa dulmiye oo nafsadiisa meel kaga dhacay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay min xadiidi caaisha man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun nebigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam axadka ku soo dariya ee diinta waxaan ka mid ahayn diin ka dhigta ee cibaado ka dhigta ee sunnada iyo kitaabka aan ku sugnayn fahuwa raddun ay marduudun calayh isaga ayaa lagu radin waayo cibaadadu waxaa u baahan tahay in la waafajiyo kitaabka alle iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam walaalayaal saxaabadii wan wanaagsanayd salafkii wan wanaagsanaa ilaahay wuxuu ku ammaanay inay ahaayeen dad haysta kitaabka iyo sunnada dad haysta manhajkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxaan nafteeda ee naftiina ugu dardaarmayaa tamasakuu bisunnati nabiyikum sala allahu calayhi wasalam walaalayaal qabsada sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qabsada oo ku dadaala watamasakuu bikitaabi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam kitaabka alla qabsada oo kitaabka ilaahay ku dhaqma sunnada nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam qabsada maxaa yeelay walaalayaal labadaasoo la qabsado badbaadaa ku jirta badbaado nafsadaadaa ku badbaadi ehelkaagaa ku badbaadi maalkaagaa ku badbaadi adduunyadaadaa ku badbaadi aakhiradaada ku badbaadi kitaabka iyo sunnada ood ku dhegto kitaabka iyo sunnada ood qabsato fa fiihima alkifaaya waxaa ku sugan walaalayaal labadaa kitaabka iyo sunnada waxaa ku sugan kifaaya wax markaa ku kaafinaya oo kugu filan waxaa ku sugan nuur iyo hanuun walaalayaal waxaan idinka digayaa wa iyaakum wa muxdathaati alumuur walaalayaal waxaan idinka digayaa
naftayda nafsadiina waxaan uga digayaa muxdathaatu lumuur waxyaalaha la soo dariyey umuuraha la soo dariyey maanta dadka lagu gacan haadinayo ee la leeyahay waxa weeyaan waa diin ee la leeyahay waa sunna kitaabkuu ka mid yahay diintuu ka mid yahay la leeyahay walaalayaal waan idinka digayaa nafsadayda nafsadiina waan idinka digayaa waxa la yaab leh oo aad iyo aad wax loola yaabo ah in kitaabka ilaahay ama aayaadka ilaahay lagu ciyaaro oo loo daliishado dhalashada nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam aayadda qur-aanka ee odhanaysa qul bifadlillaahi wa birahmatii fabidalika falyafraxuu walaalayaal bal beenta intaa leegu fiirsada beenta intaa leeg qur-aankii ilaahay baa la inxiraafinayaa kitaabkii qur-aanka lagama xishoonayo kalaamkii ilaahay lagama xishoonayo walaalayaal markaasa waxaa la leeyahay qul bifadlillaahi wa birahmatihi war aayaddu goormay tilmaamtay iyaasa ku fasiray axad markaa salafkii ka mida oo ku fasiray miyaad haysaan in markaa aayaddu ay tilmaamayso mawluudka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciddii haysa waan uga baahannahay ha keento laakiin taas waxa weeye waxaan uga jeedaa walaalayaal kitaabka iyo sunnada in markaa aynu qabsanno walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ittabicuu raaca waxaa lala hadlayaa walaalayaal qofka iimaanka leh dadka mu'miniinta ee iimaanka leh ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ula hadlayaa ittabicuu raaca maa unzila ilaykum ka laydiin soo dejiyey oo xagga rabbigii laydinka soo dejiyey talowka la soo dejiyey ee ilaahay uu noo soo dejiyey ee xagga rabbi inooga soo degay talow muxuu yahay waxaa ku markaa sheekha la yidhahdaa sheekh cabdiraxmaan naasir sicd raximahu llahu tacaala waxa aayadda uu ku fasiray alkitaab ay alkitaab war kitaabka raaca sunnada nebi maxamed raaca sala allahu calayhi wasalam sunnada nebi maxamed iyo kitaabka raaca walidaalika kitaabka ilaahay wuxuu u soo dejiyey kitaabkan qur-aanka ee ina dhex yaalla ilaahay wuxuu u soo dejiyey subxaanahu wa tacaala masaalixdeenna hadday tahay masaalix adduunyo iyo to aakhira hadday tahaba ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkan ayuu soo dejiyey isagaa markaa wax hagaya kitaabku isagaan kaga baxaynaa balaayo kasta musiibo kasta dhibaato kasta walaalayaal waxaynu kaga badbaadinaa kitaabka iyo sunnada oynu qabsanno ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala fii suurati taaha faman ittabaca hudaaya axadkii raaca hanuunkayga hanuunka culummadu waxay ku fasireen kitaabka qur-aanka axadkii raaca iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam falaa yadillu walaa yashqaa falaa yadillu ay falaa yadillu fi dunya walaa fi laakhira kama qaala sheekh naasir sicd raximah llahu tacaala waxa weeyaan adduun iyo aakhiraba lumi maayo adduun iyo aakhira lumi maayo waa qof ilaahay hagay bale sheekha wuxuu leeyahay hudiya ilaa siraatin mustaqiim bal hudiya ilaa siraatin mustaqiim waxaa lagu hanuuniyey kaas ka kitaabka raaca iyo sunnada raaca ilaa siraatin mustaqiim jidka toosan baa lagu hanuuniyey waa jidka ilaahay aynu weydiisanno maalin kasta 17 jeer ilaahay aynu weydiisanno aynu nidhaahdo ihdina siraada almustaqiim walaya jidka toosan waxaa lagu gaadhayaa kitaabka iyo sunnada oo la qabsado ayaa lagu gaadhayaa walaalayaal rabbi waxau leeyahay walaa yashqaa axadka kitaabka qabsada adduun iyo aakhira lumi maayo adduun iyo aakhira ku khasaari maayo waa ku liibaanay adduunyana waa liibaanay aakhirana kaba sii daran waa qofka kitaabka iyo sunnada markaa qabsada walaalayaal ee markaa ku dhaqma
فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا آخرة لمن مايو ولا يشقى فيهما. الدنيا آخرة دحيدنا كل من مايو بل وحوياني بل قد هدي إلى صراط مستقيم وقف له هنونيي وإلهي كهنوني جدك توسمر عليها. إلهي تبارك وتعالى آيات القرآن وحو كليهي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري أحد كقرآن كجيستا أما كتابك كجيستا ذكره وحوي شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله الذكر هو الكتاب. ذكره وحويا وكتابك القرآن الكريم أحد كجيستا إقاذا ويا كتابك يا سنة ربي وحولي تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا وحاو سقناتين نولا العليلية يكون نولانيا الدنيا آخرة ولو ظاهر كهباء هذا نين وحويا مارتي الدنيا هايستا أو إسكا قروح بدن بظاهر كهان نغضي لكن قلبي جيسا إيا مقرانيسا الدنيا دي سوا كخربانتهاي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحولي إنه للعليل ولا ليا قف كستو كتابك إيا السنة النبي عليه الصلاة والسلام كتغا وحولي إنه للعليلية بل المعيشة ضنكا وحلق فسرا قبر قوية عذاب القبر بوليه عذاب القبر أيوليه وقبر قال لقو عذاب الدونا مالين كايلك الله ديغو او عيد لغو رغو اي هلكا لغو عذابي او لورن دونا كتابكيga iyo sunnadii nabi maxamed soo kama tagin waata noloshii hadaba ciriiriga dhandhami nolosha qaraar baa halka lagu dhandhansiin qabriga lagu cadaabi oo cadaabul qabri baa markaa maartay lagu cadaabaya walaalayaal waxa soo dhan waxa lagaga badbaadaya ilaahay tabaaraka wa taala kitaabkii iyo sunnadiisa aynu qabsano. إلهي تبارك وتعالى آيات القرآن وحو كليهي بل كتابك يا محان قرآن السنة قفك قبصده إن مركا دوشي سماها أما دوشي سميهانين وح عقصية وح مروقة. إلهي تبارك وتعالى وحليهي فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قفك الراعة هنون كيغا أحد كالراعة هنون كيغا رقي الضمر متكو دوني عن الموضوع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبشارة وحويا وحمرقة وحبسية دشو ذمهانين أحد كستو كتابك يا سنة الراعة وحدكم بشارة يستا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحد كستو كتابك يا سنة قبصة أو وحويا كدكت منهج أو كدكت محاكرة ذا الدستور كدكت الدنيا آخر بقي مايو الدنيا بقي مايو آخرنا بقي مايو. إلهي بأبلن قال سبحانه وتعالى وأبلن قال حق الرب تبارك وتعالى كهذا ولا ليال حتى ولا ليال من خالف أمر الله أحد كخلاف أمرك إلهي ربي وحولي سبحانه وتعالى من خالف أمري وما أنزلته على الرسول فأعرض عنه وأخذ من غيري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال الرب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ربي وحولي سبحانه وتعالى أحد كستو قف كستو أمر كيغا خلافة إيا كان رسولك كسو دجي أو كتابك قرآنك إيا كجيسته إيا كتابك يا السنة ميلانا هين واللحظة إيا كتابك يا السنة وحانا هين قاته فإن له معيشة ضنكا وحولي النول العليلية في الدنيا ذي آخرة والنول العليلية يوليهي ولا ليقفك إلهي سبحانه وتعالى الضيعة يا كتابك إلهي قاته يا كتابك إلهي الراعة يا سنة الراعة عليه الصلاة والسلام بشارة سيوليهي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أحد ككتغة يا كتابك إلهي قادا وياه هي السنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحولي عذاب ورليال.
إلهي وحنا أمري سبحانه وتعالى وقد أمر الله إلهي وحنا أمري بطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلهي وحنا أمري طاعة سينا أطعنه وكتاب كاين الرعنه وطاعة الرسول رسول كان عليه الصلاة والسلام رضعنه آيات فربضا والقرآن كي يعني مارته كتاب القرآن يعني وحوى ينكسبا أي إلهي وحنا أمري إنه أطعنه رسول كان عليه الصلاة والسلام إنه أطعنه حتى طاعة إلهي محين نقول ليا طاعة إلهي محين نقول وطاعة الله تكون باتباع كتابي وطاعة الرسول تكون باتباع سنة طاعة إلهي ومحي طاعة إلهي وحوية باتباع كتابي كتاب كيس ولا الراعو طاعة إلهي هذا المقشو وكتاب الرعوي قف قستو كتاب إلهي الراعى ومطيع ومن إلهي أضيعي سبحانه وتعالى وطاعة الله تكون باتباع كتابي طاعة إلهي وحي نقنسا كتاب كيس ولا الراعو وطاعة الرسول رسول كطاعة وحي نقنسا تكون باتباع سنته سنة صلى الراعو صلى الله عليه وسلم إلهي تبارك وتعالى وحلياي تلك حدود الله تاسي وحدود إله وحدود إله سبحانه وتعالى ومن يطيع الله ورسوله أحد كالرسول كي إلهي أطيعه يدخله جنات تجري إلهي جنات بوغل سبحانه وتعالى قف كستو إلهي الرسول كي ساطيعه وكتاب كي سنة الراعة يدخله جنات تجري إلهي جنات بوغل تجري أي قلقليس من تحتها الأنهار خالدين فيها ونكواريان مرقس إلهي وحكسو قبل آيضا وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم كاسوا اللبان وين واتا اللبان توين يا اللبان ولا ريان قفك اللبان واكما وقفك الراعي كتابك يا السنة يا أهل الجنة يا جنة إلهي قلايا جنة إلهي يا قلايا نحرست إلهي يا هلايا قفك إلهي يا رسولك صادع صلى الله عليه وسلم قفك كتابك يا سنة الراعة قفك ساجنة قلايا وإلهي وقبل لنقاضي تاسنا وحي إلهي وكنت المامي ليبان وينين يتهاي أحد كبانية كتابك يا سنة الراعي ويوفير صلاة إلهي وحليهي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب عظيم إلهي تبارك وتعالى وحليهي ومن يعص الله ورسوله وبالعكس ومن يعص الله ورسوله أحد كإلهي الرسول كيس عاصية ويتعدى حدود إلهي نكب قدبة بمعنى إلهي عاصية سبحانه وتعالى يدخله النار نار بإلهي قلن نار إلهي يوقلن إياه خالدا فيها نار تاسون كواري دونا أحد كستا قف كستا أو إلهي الرسول كيس عاصية أو كتاب كيس سنة الراعي وايا إلهي وحري يدخله النار إلهي وحو قلن دونا النار خالدا فيها وانا كواري دونا وذلك عذاب مهين كاسنوا عذاب هانيسن يا مركا ولا ليال مركا وحنا كجبت بالنا عذابك إلهي تبارك وتعالى باتباع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تاسر عذابك إلهي كجبت بالنا ولا ليال لبضع آيات وحي لمعنيهين حتى إنه آخرني وحي لمعنيهين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بين معنيهين فمن شهد أن لا إله إلا الله قفك كم ركعه إلهي وحدانية ليسا وإلهي قرى الرمية وجب عليه أن يطيع ويتبع كتابه ما واجبك فمن شهد أن لا إله إلا الله قفك كم ركع وحدانية إلهي وإلهي كلذي الرمية وجب عليه واجب تشي سكوه أن يطيعه إلهي إنه أطيعه
ويتبع كتابه كتاب كيسن الراعو ومن شهد أن محمد رسول الله قف الرمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرسول لماذا الرمية وجب عليه أن يطيع ويتبع سنته وحواجبكه إنه الرسول كأطيع صلى الله عليه وسلم إنه سنة سرعية واجبكه وقف كستو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله محا واجبكه قف كاس إنه إلهي أطيعه كتاب كيس وراعه رسولك وأطيعه سنة سوراعه صلى الله عليه وسلم تاسول عليه واجبكه بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأخبر سبحانه وتعالى أن من أطاع الرسول حصلت له الهداية إلهي سبحانه وتعالى وحو إنه قوى الرمي وإلهي تبارك وتعالى وكوى الرمي أن من أطاع الرسول أحد كالرسول كأضيعه يا سنذي سراعه حصلت له الهداية قفك سوى قف هنوني وهنوني جدك مستقيم كايوكو هنوني وإلهي تبارك وتعالى وكهنوني إلهي باوي عليه سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد أطيعتانكي صلى الله أطيعه سنة صلى الله قاته وحي السبب ونقنيسا قفك إنه نحريست إلهي وهله سبحانه وتعالى نحريست ربين هذا شو أي السبب كوغن نقنيسا طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي وحوليه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول ورإله أطيع رسول كيسا أطيع ومعنى ذو أيتاي كتاب كي السنة الراعة ومحاد كيري سامرك وهداد كتاب كي السنة الراعة لمحاد كيري إلهي باكو شيء إلهي باينو شيء وحينو كهلينو وحوري لعلكم ترحمون حلقة يا الذين نحريست إلهي بعد هليسان محينو يعينا مانت محينو عربينا دحما محينا قصوا صار الجريا محينو مساجد ذي له ويمانينا محينو دحما ويسيسرنا نول بوح ودنيا نحريسه معه والنحريس وي هذا والنحريس تامحات كهليسا كتاب كي السنة الرعضة إلهي وضعضه رسول كي صدى صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون وحوي النحريس إلى بالهليسان والذين نحريسا رب تبارك وتعالى تعكس قد إلهي وحوك والرمي وأخبر أن من عصى الرسول إلهي وحو نوغور قفك روح مركا عاسي الرسولك فهو ضال متبع لهواه وقفل مي الراعي هوديس يجعل كيس هذا أنا تقف سنة خلاف سن يا قف سنة خلاف سن أو سنة كعررية أو سنة مركا لا شيء إيجا سكوك عناية أو حناقية أو هرنا يدين عصبة الله وضع محيبة الله وضع ورصدا بانو كسو قارنا أبيا شيء قف كالنوع عاسدا دركتو يا وقفل سنوي وقفل سن أو وحوين هودي سي جعل كيس العياري وروح لغو شيغيا وا دين موقت دين با لغو شيغ دين تا لغو شيغيا انا وحوين وا دين حق الهي كتمت ايا لغو شيغيا اذا marka دين لغو شيغو ان markaas xanaajisa maaha wayna tiraadaan bal xujada isaar gacanta isaar indhaha isaar naskani ma sugan yahay quraanku ma sheegay xadiisku ma sugan yahay hadduu xadiiskii markaa de aayaadkii lagu daliiliyo waa inaad aqbasho markaa samicnaa wa atacnaa waa inaad markaa isdhiibto inaad isdhiibto weeye markaasaa daraaddeed qof kastoo ilaahay maxaan ku dhahday rasuulka caasiya fa huwa daalun muttabicun lihawaa waa qof lunsan oo hawadiisa iyo jacaylkiisa raacay weeye
إلهي تبارك وتعالى وحلي آيات سوى النغور ميارن كالنوعاسة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير علم بالفيري إلهي تبارك وتعالى وحلي فإن لم يستجيبوا لك هديك أقبل ويان oo waxa way amarkaaga ay qaadan waayaan iyo sunnadaada fa'lam waxaad ogaataa annama yattabi'una ahwaahum wa nimanku waa niman hawadooda iyo jacaylkooda raacay ogow waxba ma hayaan waa sifir weeye waa eber waxay raacayaan hawadooda iyo jacaylkooda markaas rabbi wuxuu yiri waman adallu mimman ittaba'a hawaa ya kallumitaan badan ahad kallumitaan badan ma jiro qofka hawadiisa iyo jacaylkiisa raacay qofka lunsan ma jiro ilaahi tabaaraka wa taala saasuu nilay marka barakallahu fiikum waxa marka lagu badbaadaya waa kitaabka iyo sunnada walaaliya waxa hadaan kitaabka iyo sunnada ka weyno diin ma hay naga daay haday saxaabada inooga horeynin oo ina saxaabada ay sameeyeen naga daa sheekh ay nagu daalin meesha ay nagu haraadin xad nagu haraadin إلا العبادة نصعناه عمر بن الخطاب صوم قرنسان نمكي مركب بدعولا مركو صوم مرينو يسكوي مركز ساوح عمر ومحلويو وحن حسوس من آيات القرآن كهيد عاملة ناصبة آيات أصلا حسوس نمكن ما يشرح حكم آيام لكن وحن لؤي يا أبو آيات القرآن قف ما أنت ودن تعبيو داليو عندنا بكورن بلا مشارة oo bila ajira balkar dibteeda la walaaliya marka cibaadadu waxa weeyaan wax laga thawaabsiinayo oo laga abaal marinaya marka kitaabka iyo sunnada ay waafaqsanta walaaliya rabbi tabaaraka wa taala wuxuu inooga waramay anna man yuti'i ar-rasuula qofka rasuulka adeeca sallallahu alayhi wa sallam qofka soo rasuulka adeeca waxay daliil u tahay ilaahay inuu jecel yahay ilaahayna subhanahu wa taala uu jecel yahay fariid fiiri أن من يطيع الرسول دليل على محبة لله وحي دليل تهي إلهي تبارك وتعالى ينجعليها ومحبة الله له إلهي ينجعليها سبحانه وتعالى قف كستا وحويان رسولك أضيع صلى الله عليه وسلم أضيعتان كاسي وحو كترجميا إن إلهي تبارك وتعالى وجعليها رسولكنا إلهينا سبحانه وتعالى وجعليها ومن لم يطع الرسول أحد كان يطيع الرسول فإن ذلك دليل على كفره أحد كاستمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيع وياه أو سنة سكر مرة أو سنة النبي محمد خلافة صلى الله عليه وسلم فإن ذلك دليل أرنتها سواحي دليلتها يوم مربوطها على كفر إنه بني النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كرم مر السنة يسوك قالوا صلى الله عليه وسلم إلهي تبارك وتعالى محلي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله آية المحنة لهذا وآية امتحان كوي سكجر والقوي امتحان يا مش قل إن كنتم تحبون الله هتاتي كوا إلهي جعل هي فاتبعوني أني صرع مركز إلهي جعلانا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي أجعش إلهي نبي محمد راع نبي محمد وين راعه هذا إلهي جعش هاي نبي محمد سنة صلى الله عليه وسلم نبي محمد خلاف نبي محمد وحكم أمر الله عليه صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحكم ربنا اسكجتك وهذا إلهي جعش هاي مركز الله سبحانه وتعالى وكجعلانيا مركز ما جعلك إلهي محوك حريه هاي وحوك حريه هاي نبي الراعتان كيس صلى الله عليه وسلم نبي مركا الراعنا صلى الله عليه وسلم وكذلك الربوح أوليه قل أطيعوا الله والرسول وروحات هذا إلهي الرسول كيس أطيعه فإن تولوا هذي جيستان منكم وكتاب كذا السنة ذا كجيستان بينيان فإن الله لا يحب الكافرين وهذا قاتا إلهي مجعل قال ذو إلهي تبارك وتعالى قال ذو مجعل وكذلك الرب وحو نغور رمي أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله أنا من أطاع الرسول فقد أطاع الله أحد كسر الرسول كأطيعه إلهي مؤطيع سبحانه وتعالى ربي محولي من يطيع الرسول فقد أطاع الله أحد كإلهي يطيع الرسول كأطيعه إلهي مؤطيع سبحانه وتعالى
walaalyaal nafsadiina waxaan markaa u soo jeedinayaa oon ku waaninayaa walaalyaal war kitaabka iyo sunnada badbaadadana ku jirto kitaabka iyo sunnada aynu qaadanno wixii kitaabka iyo sunnada khilaafsan aynu iskaga tagno waxba yaan lagu dhoodhoobin waxba yaan waxaan jirin diin lagaaga dhigin saas oo kale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam maxaa uu leeyahay fi riwaayati muslim man amila amala fiiri man amila amala amalku wuxuu dooni ha noqdo waxa laga yaabaa xadiiska hore man ahdatha fi amrina marka la yiraahdo man ahdatha fi amrina marka la yiraahdo waxa laga yaabaa warana waxa manaan soo darintay waxa kuma keenay diinta inuu yiraahdo laga yaabaa qof laakiin xageedka mari man amila amala hay ka hadad marka xayir xagato oo ka yar daba tagto tiraadaya man ahdatha bali sheekhowe daanu waxba laba iimanin ya haddii markaa qofku saa u yidhaahdo xadiiskan dambe riwaayadda imaam muslim warinayo oo uu leeyahay man camila camala haye war camal ma yahay waxaanad samaynaysaa camal ma yahay mise maa waa camal weeye haye camalkan aad samaynaysahay kitaabka iyo sunnada ma ku jira kitaabka iyo sunnada ma waafaqsan yahay waa maya jawaabtu idan inaga dhig xagga inaga dhig waxba yaana isku daalin salliga nabiga noqotay sallallahu alayhi wasallam lagu diidi maayo salliga nabi maxamed inta doonta akhri laakiin salliga nabi maxamed waad badin siiqadii markaa soo aroortay oo ah siiqatu marata ibraahim waad garanaysaa sooma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibraahim bal salliga akhri bal cidda kuu qabsato salliga nabi maxamed akhri alayhi salatu wasalaam laakiin sanadkiiba mar baan yar xusuusanaya oo meel uga soo yar baxaya yaa on ku ugaarsanaya taasi jacayl maaha waxba markaa kala qarsamayno taasi jacayl maaha ee waa markaa nabi nacayb weey qaar ba waxa qoranaya nabi maratay nabi diidow dilaac bay qoranayaan subhanallah nabi diidow dilaac anu waxaan dhagayga ku maqlay sheekh leh nimankaasi nabigay diidaan war ninka nabiga diida su'aal badi weydiinaya ma gaal baa mise waa islaam baliga jawaab ma gaal baa mise waa islaam waa gaal sama haye qofka marka tiraad nabigu diiday hadda waad gaalaysiiso ogow shariicada islaamka iyo diinta islaamka waad ka saartay sheekh waad ka saartay waa dambi labaad weey qof salaad kula tukanaya kula cibaadaysanaya oo ahlu tawxiida marka tiraado waa nabi diid waa nabi ma diidina wuxuu diidayaa khilaafka nabi maxamed diidaya nabi maxamed ma diidano nabi maxamed dad jeceshahay sunnadiisa laga arko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله